بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين. أما bعdu, waxaan rabnay inaan halkan ku qabanno laba kelmid oo gaagaaban oo ku saabsan ashcariyada ama al-ashaacira, madhab waaxid ah oo hal ah caqiidada ma ka leeyihiin. oo marka aan leenahay ashcariyadu waxaas waa qabaan iyo ma qabaan, horta ashcariyadu hal lahum madhabun waaxid fi lcaqiida, caqiidada masaa-isha caqiidadee waaweyne usuusha ah oo ay ku khilaafsan yihiin dadka ayaga ka duwan, ay ku khilaafsan yihiin, iyaga horta ma isku waafaqsan yihiin. taasaan rabaa inaan marka iftiimiyo wax yar. al-ashcariya dabcan waxay u abtirsadaan ama magaca ama nisbadaasi waxay u abtirsadaan alimaam abulxasan cali bnu ismaaciil albasriyu alashcariyu, oo yacni qoladii ashcariyiintu ka mid ahaa nasab ahaan, isaga ayay u abtirsadaan. marka isaga xaaladii ugu dambeysay maxaa u madhab ahaa oo u caqiido ahaa, maxaase dadkii isaga ka dambeeyey ee madhabka ashcariyada ama caqiidada ashcariyada lagu bartay ee waaweyne a-imada ku noqday, iyaguna maxaa u madhab ahaa. intaas markaan horta ogaano ayaan waxaan gelaynaa goormaa marka isbedel ma ku dhacay caqiidadaas mase kuma dhicin. kitaabka al-ibaana la yihaha ee uu leeyahay abulxasan al-ashcari, oo culimo badan ay u nisbeeyeen, khilaafna ounan jirin kitaabkaas nisbadiisa, bal intii difaacday sida abulqaasim ibni casaakir, sida uu kan uu ku difaacayna ou isagaba yahay. ibaanaha waxa uu yidhi baabuu sameeyey, wuxuu yihi baabu lkalaami fi lwajhi waalcaynayni waalbasari walyadayn. wejiga iyo labada gacmood, alla inuu laba gacmood leeyahay, weji inuu leeyahay, laba indhood leeyahay, arag uu leeyahay arkitaan, ayuu baab ka dhigay. markaasu wuxuu u hormariyey adiladii naqliga ahayd, oo wuxuu yihi qaala allahu tacaala kulu shayin haalikun ilaa wajhah, waqaala caza wajala wayabqى wajhu rabika du ljalaali wاlإkraam. wuxuu yihi faأkhbara ana lahu wajhan laa yafnى, weji aan baaba-aynin inuu leeyahy alla sheegay, walaa yalxaquhu اlhalaaku, halaagna uunan haleelaynin. waqaala caza wajala tajri biacyunina, waqaala wasnaci اlfulka biacyunina wawaxyina. faأkhbara caza wajala ana lahu wajhan wacayna laa yukayafu walaa yuxaddu, inuu weji iyo indho leeyahay aan la qaabeyneynin, ile qaab ma naqaan anagu qaabkeeda, mana naloo sheegin, aanna la xadeyneynin oo xad iyo aan loo yeeleynin. waqaala caza wajala fasbir lixukmi rabbika fainaka biacyunina, waqaala walitusnaca calaa cayni, waqaala wakana allahu samiican basiira. waqaala limuusa wahaaruun inanii macakumaa asmacu wa araa. adiladaasuu sheegay. markaasuu wuxuu yihi wanafat iljahmiyatu, jahmiyadu waxay anfisay oo ay diiday an yakuuna lilaahi wajhun, ilaahay inuu weji leeyahay, kamaa qaala sidoo asagu yiriba, wejigii alla ou sheegtay jahmiyadu waa ka anfiyeen alle. wa abdaluu an yakuuna lahu samcun wa basarun wa caynun, maqal, arag, il inuu alle leeyahayna waa ka anfiyeen, waa ibdaaliyeen arrintaas. wawaafaqu nasaara, nasaaraday waafaqeen buu yihi, lianna nasaara maxaa yeelay nasaarada lam tuhbit illaaha samiican basiira, ilaahay ma aynan sugin isagoo samiic basiir ah, ilaa calaa macnaa anahu caalimun. waa samiic basiir waa caalim baa laga wadaa bay dheheen macnahaas. wakadalika qaalat iljahmiyatu, iyaguna saasay dheheen. fafi lxaqiiqati qowlu ljahmiyati anahum qaaluu naqulu ina allaha caalimu walaa naqulu samiicun basiir calaa gayri macnaa caalim unbuu ku imaanaa. wakadalika qowlu nasaarana sidaas waa yiri. ayb
waqaalat اljahmiyatu jahmiyadu haddana waxay dhaheen ina allaha laa cilma lahu walaa qudrata walaa samca lahu walaa basara wainamaa qasaduu ilaa tacdiili الtawxiid ilaa jahmiyadiibuu marka hadalkooda oo halkaa marka uu kaga hadlay. kadib waxa uu yidhi fain su-ilnaa haddii nala su-aalo, meeshaan ka rabo waa meelahan, haddii nala su-aalo ataquuluuna ana lilaahi yadayni, idinku ma dhahaysaan haddii nala dhaho ilaahay laba gacmooduu leeyahay? qiila waxaa la dhahayaa buu yihi naquulu dalika haa waa dhahaynaa, waqad dalla calayhi qowluhu caza wajala ayaana tusay yadullaahi fowqa aydiihim wa qowluhu caza wajala limaa khalaqtu biyadaya. waruwiya can الnabiyi sal ll ly slam anahu qaal ina allaha masaxa dahra aadama biyadihi. adiladii marka qur-aanka iyo sunadii u daliishaday, ilaahay gacan ma leeyahay haddii nala dhaho haayaan dhahaynaa buu yiri. ayb ilaa marka wuxuu yihi marka fahabatat ilyadu, gacantii marka waa sugnaatay. waqowluhu caza wajala limaa khalaqtu biyadaya, iyo qowlka allo aayaddaas. waqad jaaءa fi اlkhabri اlma'huuri can الnabiy sal l slama ana allaha khalaqa aadama biyadihi ilaa aakhirihi. marka haddana bal yadahu mabsuudataani buu keenay, kiltaa yadayhi yamiinun buu keenay. markaasuu aayaddii la akhadnaa minhu biاlyamiin walaysa yajuuzu fi lisaani اlcarab. markaas kabacdi waxa uu yihi luqada carabta kuma banaana walaa fi caadati ahli اlkhiطaab, iyo dadka ahlu khiطaabka caadadooda, an yaquula alqaa'ilu qofka inuu dhaho camiltu kadaa biyadii, shaygaas waan sameeyey gacantaydan ku sameeyey inuu yiraahdo. wayacnii bihi nicma, nicmo ou ka wado, luqa carbeed iyo takhaadubka ma ahan uu leeyahay. ta'wiilkii marka jahmiyada oo yadda in qudro iyo nicmo iyo lagu sheegana waa ujeedaan, waa radina, waa diidaa. ayb ilaa marka uu lasii dooday warkooda. intaas marka waxa ay tahay ibaanaha sidaasa ibaanaha abulxasan ashcari ku jirto. baqilaniyan u imaanaa tusaalaha labaad, waa imaamu isaguna ashaacirada marka la yiraahdo aada u weyn oo abubakr albaqilani. isaga kitaabkiisa la yihahdo tamhiid اlawaa-il wa talkhiisu dalaa-il safxada 295 waxa uu yihi fain qaala qaa'ilun qof hadduu dhaho fama alxujatu fi ana lilahi caza wajala wajhan wayadayni, maxaa daliil u ah ilaahay inuu weji iyo laba gacmood leeyahay? qiila lahu waxaa la dhahayaa qowluhu tacaala wayabqى wajhu rabika duljalaali wاlkraam, wa qowluhu maa manacaka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya faahbata linafsihi wajhan wayadayni buu alla nafsadiis u sugay. fain qaaluu marka wuxuu yihi hadday dhahaan famaa ankartum, maxaad ku inkirteen an yakuuna almacnaa inuu macnuhu noqdo fii qowlihi khalaqtu biyadaya annahu khalaqahu biqudratihi ow binicmatihi, arrintaa maxaad ku diideen in sidaa loo fasiro? haddii la dhaho markaabuu jawaabtii u bixinaa. marka cabaar kabacdi waxau yihi yuqaalu lahum waxaa la dhahayaa hada baatilun lianna qowlahu biyadaya yaqtadii wuxuu keenayaa ihbaata yadayni humaa sifatun lahu, laba gacmood oo ilaahay sifo u abay tarkiibkaas aayadda uu keenaa. falow kaana almuraadu bihima alqudra, haddii muraadku uu yahay alqudra, lawajaba an yakuuna lahu qudrataani, labay noqon lahayd qudrada. wa antum falaa tascumuuna, idinka laftiina mu-awilada ah, falaa tascumuuna ma sheegaysaan maku andacoonaysaan ana lilbaari subxaanahu qudratan waaxidan, ilaahay inuu hal qudra leeyahay yani ma sheeganaysaan. fakayfa yajuusu an tuhbituu lahu qudratayni, seer laba qudro marka ilaahay aada ugu sugaysaan? waqad ajmaca almuslimuuna, muslimiintu waxay ku ijmaaceen min muhbiti sifaati wannaafiyiina lahaa, kuwa sifaadka sugay iyo kuwa diiday labaduba waxay ku ijmaaceen yihi calaa annahu laa yajuusu an yakuuna lahu tacaala qudrataani, ilaahay inaynan ku banaanayn laba qudro inuu leeyahay. ilaahay qudradiisu ma ahan saa laba kuma koobna. ayb fabadala maa qultum, marka warkiinu waa baatil u noqday leeyahay. limaa khalaqtu biyadaya biqudrataya maba loo fasiri karo cinda axad. maxaa kalou sheegay isaguna aayadou deliishaday sifatulyad iyo wejiga oo u deliishaday, haddana sifo inay tahay ou sheegay, ta'wiilkiina waa diiday.
labadii imaanba hadda taasaan ka haynaa. kitaabka marka tamhiidu yani baqilani tamhiid اlawaail wa talkhiis dalaa'il alayra waa maطbuuc safxada 295 hala jeegareeyo qofku inuu wax fiiriyaa fiican. ayb ibaanaduna baab waayo baab uu babaabeeyeyba wejiga iyo yani labada yadi alle subxaanahu watacaala. ayb marka hadday arrintu sidaa tahay hadday marka ilaa baqilani raggii yani abulxasan alashcari abubakr albaqilani hadday sidaan min qudamaa lashaacira hadday sidaan qabaan oo sifaatu daadka ay sugayaan wejiga iyo ay kamid tahay sifaatu daatiya sifa ahaan ay ilaahay ugu sugayaan maanta marka maxaa bedelay taas? ashcariyada madhab kale oo kaas khilaafsan oo kan hadda ay abulxasan iyo baqilani radinayaan madhab ma ka dhigteen mase kama dhiganin? iyadana waxaan fiirinaynaa marka kutubaha markii uu yimid abulmacaali aljuwayni ayaa baroosinka la dhigtay agtiisa, asaga ayaana waxa uu bilaabay laba shay. adila naqliya horta inaan sideedaba la deliishanin. aladila naqliya macnaha qur-aankii xadiidkii iyo inaan loo xujaysanin masaa-ishan tilmaamaha ilaahay iyo waxyaabahaas ku tacalluqo inaan manhajulistidlaalkii abulxasan iyo baqilani wuu ka leexday asaga. ayb tan labaadna waxay tahay sifaadkan ay sheegayaan isaga marka waxa uu yidhi waa sida ay ayagu radinayaan oy kasoo horjeedaan ayuu u qariray. kitaabadiisa kitaab alirshaad aan soo qaadanaa, kitaabka la yiraha alirshaad ee uu leeyahay caqiidada ah ee uu leeyahay abulmacaali aljuwayni safxada 187 waxaan ujeedaa cafwan 161 waxa uu yihi wa ama alaxaadiidu alatii yatamasakuuna biha axaadiidta ay qabsanayaan uu yihi fa aaxaadun laa taqdii ila alcilmi waa axaadiid aaxaad ah cilmi ma keenayso ma xukumayso cilmi. walow adrabnaa can jamiicihaa kulligeed haddaan ka jeesano lakaana saa'iqan uu yihi waa banaanaa lahayd banaan. laakinaa nuumiu ilaa ta'wiili maa duwina minha fi sixaax. laakiin kuwa bukhaari iyo muslim ay wariyeen xoogaa waxa uu yihi iyaga ta'wiilan ku dayeynaa. fa minhaa xadiidu nuzuul, xadiidu nuzuulkaa kamida yanzilu rabbunaa yanzilu llahu tacaala ila samaa'i dunyaa iyou keenay. kuwayaalkaas oo kaleo saxiixa iyo ku jiro. ayb isagana marka halkaasi sidaas oo marka wuxuu ku tilmaamay sideedaba in marka axaadiidta iyo adiladan oo naqliga ah in dhinac layska mariyo marka baabkan la taqriirinayo. abulxasan iyo baqilani iyona adiladaas adilay ka dhiganayeen maxaa u daliila marka la yiraahdo kaas ayay tilmaamayeen. ayb waxaa kaloo iyadana arisaala annidaamiya hadalka uu ku yidhi alcaqiida annidaamiya baabuu baabeeyo la yiraha baabun fi samciyaat, samciyaadka ku saabsan. waxa uu yidhi ana almacluumaati tanqasimu ila alcaqliyaati waاsamciyaat. macluumaadku caqliyaad iyo samciyaad ayay u qeybsamaan. famaa kaana macquulan wixii macquul ah wajada alcaaqilu lahu halajan fii nafsihi. caaqilku qalbigiisa wuxuu uga nafsadiisa dhexdeeda qabow iyo inshiraaxa uga dareemaa, wainshiraaxan fii qalbihi. wamaa talaqaahu min asamci wuxuu samciga ka qaatay oo qur-aankii iyo sunnadii iyo waa samcigii fa huwa gayru murtaabin fiihi ma lagu shakinayo yidhi. walaakinahu laa yajidu min nafsihi halaja aladii yajiduhu min almacquulaat. laakiin qalbi qabowga iyo qalbi inshiraaxa uu ka helayo macquulaadka ma ka helayo yidhi. kan ujeedaa marka manhaj waxaa weeyaan marka nusuustii marka si laysaga dadbayo. aamidi isagana aan soo qaato kitaabkiisa gaayatulmaramka
صفxada 136 ilaa 138 taxqiiqa xasan maxamuud cabdilatiif wuxuu yidhi waama maa qiila bihubuutihi min baaqi sifaat 7 sifa marka laga reebay sifaatulmacaaniga wixii soo haray wixii la sugay oo sugitaankooda la sheegay falmustanadu fiiha laysa ila almasmuuc almanquul waxa loo cuskaday waa un keliya wuxuu yihi adilo oo masmuuca oo naqli ah adila samciya naqliya oo qur-aan i sunno bisaa loo cuskaday uu leeyahy duuna qadiyaati alcuquul looma cuskanin wاlmustanadu fi lwajhi wejiga waxaa loo cuskaday yiri wayabqa wajhu rabbika duljalaali wاlikraam wafi lyadayni maa mancaka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya wafi lcaynayni fainaka biacyunina ilaa marka uu sheegay marka adilo badan uu sheegay kuwayaalkaasaa loo cuskaday yiri markaasuu wuxuu yidhi waclam ana hadihi dawaahir nusuustan dawaahirtan wain waqaca aliqtiraaru bihaa inkastoo lagu kadsoomay yuu yihi in lagu kadsoomay ay dhacday bixaysu yuqaalu bimadluulaatihaa waxa ay tusaysa yaa la dhahayaa daahiran min jihati alwadci allugawiyi ay ku tusayso iyo walcurfi alisdilaaxiyi saasaa loogu kadsoomay fadalika laa maxaalata wuxuu yihi inkhiraatun fii silki nidaami tajsiim waxaa la dhexgalaa markaasuu yihi nidaamkii tajsiimka wadukhuulun fii طarafi daa'irati tashbiih tashbiihii daa'iradiisiina darafkeeda la gelaa wasanubayinu maa fii dalika min adalaalna waa cadday doonaa yiri wa fii طayihi min almuxaali in shaa allahu bal ilwaajibu an yuqaala laysa kamidlihi shay huwa samiicu lbasiir fain qiila marka haddii la dhaho biana maa dalat calayhi hadihi dawaahiru min almadluulaati waxaan nusuustan ay tustay madluulaadka ah wa ahbatnaahu biha min asifaati ean sugnaya sifaatka ah laysa calaa naxwi sifaatina waxaan leenahay ilaahay baan sifo uga dhigaynaa sifaadkeennana ma shabahdo walaa calaa maa natakhayalu min axwaali dawaatina bal mukhaalifatun lisifaatina waaba khilaafsan tahay kamaa ana daatahu mukhaalifatun lidawaatina sida daatadiisu daatadeenna u khilaafsan tahay wahada mima laa yaquudu ila tashbiih tajsiimka iyo tashbiihana arrintaas ma keenayso haddaan dhahno walaa yasuuqu ila tajsiimna ma u kaxaynayso qofka wuxuu yihi fahada wain kaana fii nafsihi jaa-izan yiri inkastoo iska bannaan yahay arrintaas laakina alqowla biihbaatihi in la sugaba min jumlati sifaati in lagu daro oo lagu sugo yastadcii daliilan qadciyan horta in sifa laga dhiga ilaahay looga dhiga daliil qadciya u baahan yahay wa hadihi dawaahiru dawaahirtaana wain amkana xamluhaa calaa mithli hadihi lmadluulaat inkastoo lagu xambaari karo madluulaadkaas faqad amkana xamluhaa calaa gayriha geyrkeedna waa lagu xambaari karaa waa la awili karaa waa ta'wiilkii abulxasan ibaaqilaani diidayeen wamaca tacaarudi alixtimaalaati ixtimaalaadku hadday iscaaridaanna watacadudi almadluulaati falaa qadca qadcigiyaa meesha ka baxaya wamaa laa qadca calayhi min asifaatina laa yasixu ihbaatuhu lidaat waxaan hadayba qadci ku sugnayn maba la sugaysa idan marka sifa ahaan in loo sugo diidan yahay oo weliba qur-aan iyo xadiid lagu sugo qur-aankiina wuxuu leeyahay dalaaladiisu qadciyu hubuut ha ahaado laakiin dalaaladiisu qadci ma aha waa ixtimaalaad iyay keeni hadalkaasna marka waa xagga istidlaalka juweynina waa aragnay aamidi waa kana sidoo kale irshaadka 161 juweyni wuxuu yihi ama alaxaadiiu ahaa kan waa akriyey wa ama alaxaadiiu alatii yatamasakuuna biha axaadiidta ay qabsanayaan fa aaxaadun waay laa tufdi ila alcilmi walow adrabnaa can jamiiciha lakana saa'iqan laakina nuumiu ilaa ta'wiili maa duwina minha fi sixaax waa akriyey kan caqiida nidaamiyana warkii uu ku yidhi waa akriyey iyadana ayb taftazani sharxu nasafiya wuxuu yihi ina khabra alwaaxidi calى taqdiiri اجtimaalihi calى jamiici الsharaa'id اlmadkuurati fi usuuli اlfiqhi laa yufiidu ila الdana walaa cibrata bالdani fi baabi اlictiqaadaat warkoodii marka xaggaasna manhajulistidlaalku halkaasay ka mareen idan ashaaciradan abulmacaali aljuweyni kasoo bilaabato manhajulistidlaalka waa ku khilaafsan yihiin abulxasan alashcari iyo abubakr albaaqilaani ayb